الماسونية ماسونية ده معناه دوام حي حركة يهودية أو سرية أوية أو أي يهود أساسين إن أي أوغان يعني حكماء مملكة الصهيون إن لأوغل لوغو تلقى لوي مركي توراة أي فعالية دي لبابا شيء كدن بول أساسي وي فعالية دي توراة مركي لبابا شيء كدن بو عالم الإسلامي دولان كيسين اللي سميهي أيام ماسونية اللي سميه وقت الأوبا اللي سميه ماسونية شعار بيلاده كل كزائفة أي أكتوده لكن هادف أو لوغو تلقى لي دادك مسلمين تأين لوغو لتقالما يا عالم ككالي شعائر كذا وحاكم ذا أما علامات ذا وحاكم ذا سلوغان كذا وحاكم ذا كلمات كلا يراهدو الحرية دادك أو لغا حرية وحلا لوحي ديما كليتا يا عقول كليتو وأنا عقوش يهودا هين لغا حرية سنان إلا هرجليو إيو والالتنمة عالمية كلمة عالمية اللي يراهداد مغشنا وكلمة يهود ويسوى أساس تأثر كذا international هداد مغش community هداد مغش كل جيد أردن وكلمة يكو قرابة يهود وكو قرابة وي عالم كأنتي سكلت دائما يهود وكلجة اسمه سو تاجان ولجود دائما يهود وحويان سيدا باراسايت كلا يراهدو أكليتو أي قلا إسكول معنيان قلا ذا إسكول معنيان يكو قرابة مقعودة دائما حتى دين تو ذكر جود مشاجان وحير هذا جودايو كريستيانتي دائما وحي يرهدان متقنا جويش أمريكان بوليسي وحاسادو جدودن كل جود أيو كل جود اسمه متوحان دائما أمت كلاتي كل شقيستان أيو سوبرفايزرز وحلا يرهدو أمام مسكح له حد بيري يسوي هذه الجرالة وحي كقرن بروتوكولات اليهود اللي يرهدو بندقي كتاب كيسة سجالات وحي كقرن من خلال هذه الكلمات الزائفة كلمات أنا قلت أنا سمعيني إيه حرية ده إيه سنانتا إيه والالتنمة عالمية وحي نوس ورجل نيسا إنهم باب إنه وحكست أو حوج أما قوة كست أو حاكمة وأنا قوة نالها إنهم باب إنه ينوس ورجل نيسا بيراته مركا وإنا إنه أديك سنة كلمات كاس سأن وحلا وحي وحكومة يوكلت الدمان تود أي أنا نوس وهوس كلام وأي أنا تلاذ يضع صعدان هذه شرالة وحي هذا الشارع على هرجليان وحلا يرى تحرير المرأة بروتوكولات صهيونك كيس كيو تبنات وحكو قرن ونعني تحرير المرأة أي تحرير المرأة المسلمة عن ديانتها الإسلامية قبل المسلمة دا دين تيدها لغا حريو waxay yiraahdeen diinta islaamku hadii gabadhu ay haysato daa'iman dadka la tarbiyaynayo wuxuu ka yimaadaa asalkiisa saldhigiisa yahuudana rumaysantaa gabadhu ka yimaadaa bay yiraahdeen ilmaha gabadha yahuudiyada ay dhasho cid kasta ha guursatay waa yahuud weey ayaga qaacidadooda ninka yahuudiga ilmahu gabar kale ka dhalaana yahuud buuxda ma kolka waxay yiraahdeen hooyada weeye waxa qofka waxtara ama dagaalama qofka gacanta ka soo saarahay waa hooyada weey sida darteeda ummadda muslimiinta hadaan rabno inaanu dulayno waa inaan hooyooyinka gabdhaha muslimiinta ka saarna diintooda islaamka inaan ka saarno akhlaaqada ka dilno qofkii aan awal ogeyn oo hadda ogow inay tahay qadiya haadifa oo la rabo in gabdhaha muslimaadka looga saaro diinta islaamka had iyo jeer aan loo tusiyo diinta islaamka inay tahay negative أنا وحقوق أيضا وقولين أما رايتس أنا وقولين وحي كحورين يندينت يا أخلاق ده يا كرامة ده وحينا الربان إنه كدجان جسد أنا حشود لهين أو كرة حيسته الكسته أو شيطان هي الكسته أو لعين أي كرة حيسته إنه كدجان بدونية سيدا أي كدجان قبل النصرانية ده هذا كور أدي أدوني سيد كاغما شيكاynay hadaad Yurub ku nooshahay sida loogu adeegtay gabadha jirkeeda looga dhigtay silca ama badeeca looga dhigtay maanta isu sheegimayna inteena joogtaahi bilaad al-kufr isuma sheegin kolka waa inuu ninkaasi noqdaa Soomaaliga ahi waa inuu noqdaa laadiinigaas aan sheegay waana inuu noqdaa maasuunigaas aan sheegay oo hadaaftaas waa inuu fuliyo weeyaan
marka gabadha Soomaaliya xijaabka lagu la dagaalamay Soomaaliya nasaara kuma noolayn yahuuduna kuma noola maxaa keenay marka nin Soomaaliyi gabadhii Soomaaliyeed ahayd ee muslimka ahayd ee la dhalatay asaga ama uu dhalay ama adeerka u ahaa inuu la dagaalamo dharkeeda jeexjeexa maxaa keenay waxa keenay manhajka loo dhiibo la yiri fuli ayaa sidaa ku qoran tahay inta aqligu ku taxliilay oo dhihi lahaa manhajkan la ii dhiibay aniga ima khuseeyay aqligu ku dhihi lahaa ma jiro hore looga soo dilay aniga ku sheego wala soo tarbiyay marka hadduu daabit booliis yahay iyo hadduu siyaasi yahay iyo hadduu yahay maanta mutacallim intaba waxa loo tusiyay kadil gabadha akhlaaqda qoysku ha burbure hadafka asaasiga ah waa ka weey waa inuu noqdaan istishraaqi ruuxa Soomaaliga ahi ee raba inuu qabiilada hogaamiyo gacantana uu ku dhiga doonaya dalka Soomaaliyeed taladeeda waa inuu noqdaa istishraaq ayaan istishraaq macnihiisu waa maxay xarakatun asasaha al-yahuud min qibal an-nasara wa haraka yaduna yahuudiyya laakiin laga asaasay reer galbeedka xaqooda biismi ad-diin wal mutakhasisuna fi shu'un ash-sharq dadka mutakhasisiinta ku ah dadka islaamiyiinta li hadii sharq lagu yiraahdo daa'iman dadka muslimiinta ay u jeedaan ogaadata loogu talagalay inay ku khaas noqdaan oo ay expert ku noqdaan sida loo dabar gooyo ama loola dagaalamo dadka muslimiinta dhaqankoodii diintooda waxay leedahay dhowr hadaf oo asaasi ah dhowrka hadafka ugu horeeya waxa weeye hadaf diini ah oo siyaasi ah in dadka laga tashkiikiyo oo shaki iyo tacni looga diro diintooda in laga tashkiikiyo khaasatan dadka dhalinyarada ah dadkan lagu leeyahay waa mustashriqiin ama waa lagu leeyahay waa nasaara ama kristiyaantiga ee Soomaaliya soo galay ama hadi jeeraale kanaa'iska ka shaqeynay oo daa'iman ku shaqeeya wadiifooyinka kale ama dhakhtarnimaha ku shaqeeyo ama economista ku shaqeeyo ama suxufiga ku shaqeeyo daa'iman waxay kamid tahay siyaasadda asaasiga ah oo maanta ay ku dhaqanto حركة استشراق يكون قنطو قفك الدين محض اللغة ديرو أبدا اللغة ديرو ودمد المسلمين تعال وايو الدين هدي اللغة ديرو ولا فهم يوحلو ليه أنا الدين ولا هنا قالتك واحد وضو لكن وين اللغة ديرو بروفيشن كلا أما شقة كلا يتو وأنا أهين شقة أوفلين وين اللغة ديرو ماشي باسم الدكتور وين كنت جا باسم الفولنتيرز وين كنت جا ضد مساعدين وين كنت جا دقاليهن وين كنت جا جورناليست وين كنت جا ما أنت محي لبيت من شيء مستشار سياسي يعني وين كنت كان أرمها نوع عاسو كليتان وحيالها أي كو أديكتان وحاكم ذا وأبك أولا ياب كلهم إمنك أوجادي وايو وحيالها فربضان أو عن كل أجلية أيات شراء comparative religion واحد theology ينك اللي يرادو كل كان سمعيني ماذا كم إذا ماذا داس أيان قلب كان نقاشيني نبى إسلا سو تاجو مركو وحوي marka aynu ka doodnay waxa la yiraahdo crosska inaanay ka mid ahayn ay bible ay ku taala ma jirto wax kelimada la trinity kitaab bible ay ku taala ma jirto yani saddex ilaaha jirta kitaab bible ay ku taala ay ku qoranta ma jirto yaa sameeyay hadaad genesis u noqoto hadaad matthew u noqoto hadaad u noqoto maanta markay kulligood hadaad u noqoto john baptist waxay ku qoranta ma jirto been iyo khuraafaad weey إنجيل متى كل جزء مركب أول النقطة هل كتابه بايبل أو رسمي يكون قرآن تمجرت كلمة ترينت اللي يرادو وأنا أقول لك ما أتحداهم نين كاني كرم لها ويا هذا قربان كلها تحدي وكاني واي يا سمي واحد سمي إن من كل يرادو ثيولوجيانس كأي سمي ثيولوجيانس كان من كل يرادو سمي يعني فقه قالات كذا كذا أي سمي كلمة ده واحد سمي تايم كي ودق مجري أما أكون ولا إنك لو نشر توماس إكوينس إيو هيجل إيو كانت إيو مركي أي سمينيين وديمود أي تصنيع أي كسمينيين أي كوسو سميين أناليسيس أما ديفلوبمنت أي كسميين ضد كانت تاسي كإيبيين لكن مد أساس لو بيس لما لها ما أنت ضد نكستو كريستيان كله ضدنا نكري تكوب بروف كرام مجري بنانك كود عيا أنا كل كلمة دقات ما أنت تويدي نكستو ويدي كريستيان تيا نكري تكوب كينك الترينتي كوب كينك كرملها وحكم ذا عيسى إيو إله iyo ruuxul qudus saddexdooda markii la isku daro waa isku hal ilaahay inta kale oo ilaahaysana waa jokes inta kale oo ilaahayala waa mudhikaat marka hal ilaahay jira marka dambe waxaan ku weydiiyay waxaan ku eri ilaahay yahuudi kiinu ma isku mid baa kolkaas ay yiraahdeen kuwa jokeska markii laga reebo ha
saddex ilaah baad aaminsan tihiin xageed soo gelaysaan marka la darsayo monotheist iyo dualismka iyo tribalismka marka la yiraahdo iyo atheist waxa la yiraahdo xageed soo gelaysaan baan ku iri halka diina iyo labada diimood iyo saddexda diimood mid ka rumaysan iyo diin la'aanta xageed soo gelaysaan hadaatiin adinku marka trinity waxay yiraahdeen waxaanu soo gelaynaa qolada halka diina rumaysan aanu soo gelaynaa muslimka aanu ku noocnaa markaas oo kaleeto oo seed ugu noqonaysaan baan ku iri soo adinka trinity ka rumaysan oo saddex ilaah rumaysan kolkaas ay yiraahdeen creator ka moogiye inta kale torodin waa jokes bay yiraahdeen waa kaftan inta kale oo dhan kaftan way kalaam jamiil yaa idin keenay marka waxaad iga tusidaan baan ku iri ninkii professorka ayaa jaamacadda dhigay waxaan ku iri markii dambe waxaad i tusidaa hal kitaab oo bible oo aad leedihiin adinku ama inkirsan oo ama raacsanaaw oo ay ku taala trinity-ga ay tusi ma jirta buu maxaa idin daba dhigay baan kolkaa sidaasaan u haysanaa buu yidhi annagu yani waa taqliid acmaa wey diinta islaamka buu yidhi waa diinta markii la yidhaahdo fundamentally diinta ugu rasmisan way tahay buu yidhi laakiin ma aqbali karna buu yidhi maxaad u aqbali weydaan ku iri wuxuu yidhi aniga hadday kaligay la weydiiyo waan dhihi lahaa waan aqbali karaya yani academically laakiin diinta aan rumaysanahay oo aan ahay priest nin diinta looga dambeeyo ma aqbali karaya buu yidhi waayo haddaan anigu aqbalo dad badan baa iska raacaya buu yidhi oo aan iyagu waxba baarin waxyaalaha dadka muslimiinta diinta ay uga shakisiyaan waxaa ka mid ah diinta islaamka asaaskeedu waa qur'aanka iyo xadiidka labadabana carabay ku qoran yihiin marka diin alla soo dejiyey say luqa carbeed keliya ugu qormi karta ilaahaas diintaas soo dejiyey marka waa cunsur bay yidhahdeen macnaha waa waxyaalaha loo yaqaano apartheid buu sameeyey bay yidhahdeen carabta seed u rumaynaysaan bay yidhaahdeen hadalka ay keeneen inuu run yahay inuu been yahay seed ku kala ogaanaysaan iyagoo carabta dadka iminka nool ugu been badan bay yidhahdeen dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayay ka dhaadhiciyeen qadiyaadkaas iyaga ah kolkaas iyagoo wareersan iyo yimaadeen maalinkii dambe waxay ku qaateen course aan diin shuqul ku lahayn oo la yiraahdo philosophy bay ku qaateen si kale uma ogeeyna maalin baan socdaan intaan ka soo baxay baan ku iri kuwa meel taagtaagan salaamu calaykum saalay waa dhaqan carbeedkii weey ilaa gaalkiiba u soo sheegay sida salaamu calaykum waa dhaqan carbeed ba ha oo maxaa salaan ah iska warana salaan ha yiraahdo waxaan taa idin leeyahay waxa uu bilaabay mid masaajidka nugula tukanay maalinkii dambeeto oo koorsadaas qaatay inuu yiraahdo quraanku inuu sax yahay in wax lagu daray in wax laga gooyo la kala garan maayo caraba oo asal carabtuna si authentic waxuma sameeyaan waa inay yaro Soomaali aho maanta markii masaajidka nala tukanayay oo wanaagsanaa way markii hore waxaan idin sheegay taa idin kugu leeyahay takhriibka iyo fasaadka ay ku hayaan oo maantayto ay ku itihaamayaan waxyaalaha tacniga asaasiga istishraaq way ka shaqeeyeen tashkiika diinta waxa kulli faaqan ruux alla ruuxi diinta islaamka saldhig waa maanta in la yiraahdo oo istaamb lagu dhufto la yiraahdo waa mukharrib weeye nin kasta oo diinta faafiyaahi dadka in la dilo oo wax qal qaribo ka shaqeynaya sida darteed diintaas diin sax ma aha waa diin violent ay iskaga tago ka dheeraada in la yiraahdo wadaad kasta oo diinta maanta ka hadlayaahi agtooda iyaga waa muttaham weeye ama hay yaqaanin ama yaana aqoonin waa muttaham weeye hadafka labaad oo miraha ka mid ah oo istishraaq ay leeyihiin waa hadaf iqtisaadiye weeyaan wadamada muslimiinta kolkii dadkooda la gacmo duubo oo diintii laga saaro oo dadkii wax bartay laga dhigo hiilka gaalada laga dhigo ku biiraan dhaqaalihii wadankan ay cuuryaamiyaan waxa ay doonayaan dhulkaasi khayraad kasta uu leeyahay inuu daa'iman ku noolaado suuqa reer Yurub ama Mareykanka wixii ka soo baxay inuu kaliya ku noolaado waxaan la yaabay 83 markaan ka shaqeynayay isbitaalka Sacuudiga yaa waxay soo qortay jariidad Sacuudiga ay leeyihiin ictidaaraan cudur daaranayso dawladda Sacuudiga oo Ronald Reagan oo markaas ku eedaynaya isaga oo uu leeyahay sidee baad u gadan kartaan muntajaad aanan Mareykanka ahayn aan aswaaqda Sacuudiga ugu aragnaa waa inaad yaraysaan
oo muntajaadka aad wadamada kale ka keenaysaan aanu ka badanin 20 boqolkiiba 20 waa inaanu ka badanin boqolkiiba 80 kalena oo ahada Mareykanka mid ka yimid waa wadan batrool leh dhul zaraaca la dhinaca januubka markii laga fiiriyo xor oo meesha doon in wax ka keensada xaq u leh kolkaas waxa lagu ciilayaa la leeyahay muntajaadka ama waxyaalaha ay soo saaran productiga Mareykanka waa inuu boqolkiiba 80 suuq inaad u ahaataan adinka ayay kaliimahan khaliijka dhan way marka waa suuq inay u ahaadaan hadii jeeraale wadankanagi waan ogsoonahay nin kastoo wax soo bartay waa laangare waayo meel wax ka soo bartay oo macna lama gaarsiinin inuu wax soo saarano looguma talagelin inuu wax damira loogu talagalay marka waa inaad taa ogaataan suuq marka ayay u tahay aswaaq tijaariya oo dadkeedu aanan wax taxarruga samaynin waligoodna gaajo iyo faqri iyo jahli iyo wixii la ku noolaada daa'iman oo gaalka barakaysta wuxuu u soo rida ayaa daa'iman laga dhigay oo sidaas ayaa loogu talagalay waxaad ogsoontihiin wadanka Soomaaliya waxyaalaha indheergaradkii looga saaraya iminka oo loogu talagalay aanan la doonaynin iminka Mareykanku si aqli dhaaf u geliya Soomaalida Mareykanka u geliya waxaan weydiiyay nin baan weydiiyay expert ku ah oo Mareykan oo Indianapolis nooga yimid ayaan waxaan weydiiyay waxa Mareykanku waa taynu dagaalnay asbaabta u soo guraya Soomaalida waa maxay wuxuu yiri madaxweynaha Mareykanka Clinton yaa markii dagaalka looga adkaaday buu wuxuu yiri inaan inta soo jeesha geyno George Bush wuu ku khaldamay buu yiri Soomaaliyan ku bedeli karna iyada dhanba 10 milyan oo dollar inaanu 100 kun oo askari u kaxaynahay qalad bay ahayd buu yiri Soomaaliya on 10 milyan oo dollar ku bedeli kara iyada dhanba inaan 100 kun oo askari iyo inta soo kharaj inaan ku gala qalad bay ahayd buu yiri inaan soo kaxeeyo 10 milyan oo dollar ku soo qaado oo badda Mareykanka soo dhex dhigo oo marka halka ay absorption ku sameeyaan iyaga filnayd buu yiri kulligooda idin inaan soo qaado oo mujtamaca Mareykanku dhuuqa iyaga dhan oo diinta ay ugu la dagaalamayaan aan ka tirtiraaba iyaga filnayd buu iyada dhan buu yiri typically ninkii shalay kula dagaalamay madaaficda kula dhacay diyaaradaha maanta kabraha kula dagaalamay ayaa wuxuu u furay irdihii oo dhan inuu yiraahdo kulligeen ana idin qaadayo soo bax arkaas sidii ay haraad qaba ayagoo carabka lulay isku shubeen Mareykanka waa taqdiid dadkaas waxa la doonayaa markay gaala noqdaan in lagu soo celiyo adiga waayo nin Soomaaliya wuxuu ku yiri oo expert ay u haystaan ayaa wuxuu ku yiri Soomaaliya bergi intayna Mareykan ku duulin waa in Soomaaliya laga dhigaa state kamida state-ka Mareykankuna ay tawaliin carabtana laga fogeeyaa oo markaasi Mareykanku oo maamulo ismana maamuli karnaa Mareykanku waa inay maamulaan iminka anaguna aan noqono state kamida Mareykanka oo Soomaaliya lagu leeyahay mutacallima oo historyga bartay oo lagu leeyahay waxba kala garanaya oo laga yaabo inuu xataa isu sharxi la madaxweyne inuu bari ku noqdo waa taa weeyaan hadafka asaasiga ay markaa kale yihiin nafaayadkii Mareykanka iyo reer Yurub ay qaadeen Sweden-kan ay kamid yihiin waxay ku dambe gareeyeen Soomaaliya badeeday birigeeda intaba way ku xabaaleen ayagoo doonaya long term process inay markaa dadkaasi ay kulligood ku bedelaan oo ay ku sameeyaan wax la yiraahdo nuclear ay ku sameeyaan cultivation ay ku sameeyaan dadka oo ay ku bedelaan geneticooda inay ku bedelaan asaasan sidii Hiroshima iyo ka dhacdo oo kaleeto cid maanta muqaabil ka qaadanayso lacag ka qaadanaysa ma jirto cid hooy iskalena ma jirto sidaana in lagu hayo waana u imaan doona insha Allah hadafka siyaasiga ah oo saddexaad oo kale ah istishraaq oo kale yihiin Soomaaliya ee aan dadku ayna ka warqabin waxa weeyaan ummadda Soomaalida in laga fasliyo oo laga gooyo dadka kaleete ee muslimka ah xiriirka ay la leeyihiin kulliyatan in laga jaro Soomaaliya inay iyadoo Afrika ku taal oo madow inay taageerada muslimiinta daa'iman ku dhagan tahay boqolkiiba boqol muslim inay ahaadaan waa qalad ay yiraahdeen yahuud iyo nasaara ba isku waafaqsan yihiin dhamaantooda oo idin marka waxay yiraahdeen Soomaaliya waxay ahayd markii hore sabta kamida asbaada yahuuda oo u soo haajirtay muddo horeeto qarni Afriqiya u soo haajirtay sida darteeda taageeradan carabta ay taageerayaan qalad weeyaan islaamnimadan ugu wacana islaam asalkoodii ha loo celiyo oo dadkan laga saaro markii falaashaha ay dhameeyeen oo Itoobiya ka dhameeyeen waxay bilaabeen inay yiraahdaan Soomaalidu waxay ahayd sabda kamida asbaada yahuuda
waxay bilaabeen marka dad la oran jiray yibro Soomaalida oran jirtay inay yiraahdeen hibro way kelimadaani dadkaanina waa yahuud marka kulligood la soo guro dad badan oo Soomaaliyeed isku dhiibeen Canada iyo Mareykanka inay yihiin yibro inay yihiin ayagoon yibro ahayn in isku dhiibaan dad badan in shaqo la siiyo oo horay loo mariyo inay qaataan kaarar ay ku qoran tahay magacyadaas oo kii Daawud la dhihi jiray iyo kii Cali la dhihi jiray in David soo wada bixiyaan oo ku yiraahdo waan ku shaqaysanay inta North America joogo magacaygana waan bedelaya magac bedelku marka waa taariikh dheer oo socoto weeye magacan islaamiga ah Muhammad iyo Cabdullah iyo Cali la yiraahdo marnaba inaanu meesha ka shaqaynin oo nu qofku haysanin oo ay dhantiisa aanu noqonin waa asaas ay doonayaan way midii ila xanuunka badneed waxay ahayd gabar Soomaaliyeed ba waxay keentay inay yaroo ay dhashay iyadu waxay keentay school elementary ah kolkaas ninkii principalka hayo isnaqiinay baa wuxuu yiri on ula tagay anagu ayaa wuxuu yiri wiilku magacii kolkaas tiri Muhammad baa la yiraahdaa forget about him we will call him Mike Mike baan ugu yeeri doonaa buu yiri iska dah why baan maxaad ugu yeeraysaa Mike markaas it's difficult tomorrow for him to carry a certificate written on the Muhammad Muhammad is a very difficult name حاجات كبرتي معي محمد كاستمع اسمه difficult تيبا هابوي أنا قبل مقعد محمد بالير هذا بان كل كاسو يري تاولا ما تشيد أبوي لكن مقعد محمد لير هذا نور أمريكا وجماعة وشقين كرو مركب for his benefit بوير وحن وير دونا أبوي مايك أما ماو أيان وير دونا أبوي ماو بابتاي مركب إمنكا ماو دوا محمد كي oo maanta HOD iyo W inta HO kaliya la isku soo qaaday inay kaararka ku qortaan maaw ayagoo ka cararaya magaca Muhammad inay sameystaan waxaan taa ku leeyahay in laga siibo qulubta dadka muslimiinta ah oo Soomaaliyeed jacaylka ay u qabaan dadka muslimiinta ah kaleeto iyo raabidada iyo xiriirka ay la leeyihiin iyo ku xirnaanta ay leeyihiin iyo hiilka ay leeyihiin intaba in laga jaro ayaa loogu talagalay qadiyada ayada siyaasiga ah waa yuhuud ma hilmaansana dagaalka iyaga carabta ka soo dhameeyay in kastoo ku guuleysatay yuhuudu haddana muslimiinta inaanu wali dhamaanin rajadooda inay dhamaan way ogsoon yihiin marka hiilka muslimiinta kala ka iimaanay intay gooyn karaan waa inay gooyaan way bandiga afaraad ee miraha ka mid ahaa shirqoolkii gaalada iyo waaqaca guracane maantayto waxaa ka mid ah inay adeegsadaan reer galbeedku wasiilada la yiraahdo wasiilatu al-i'laam inay adeegsadaan لتخريب الأمة المسلمة وخاصة الصومال إني أديك سدان ميديها هي فساد كيسية خراب كيسية إني واديك سدان أول بدلو أول دع الهبابيو دقن كا دين تا إن لدع الهبابيو دتك سحن لوجو ترجمه أو وح الله لو وحي حقيقة بجرود كل جود بدلو عالم كان لو جارسيو أيضا مذهب كلي بكتر كلا إن الجارسيو وأساس كإليهين لون أديك سد الصحافة ده iyo telefisyoonka iyo idaacadaha in loo adeegsado si loo fuliyo arinta marka meediya waxa la sameeyay odogsoontihiin aflaamta khaleecada ah ee jinsiga ayaa in badan waxa lagu dadaalay iminka kaybalada asaasiga ah ee dadku ay ka fiirsadaan idaacada newska laga fiirsado kolban kama warqaba Yurub laakiin waxay keeneen kaybalada asaasiga ah ee akhbaarta kaliya ka fiirsanayso normalka in lagu laro sharti looga dhigo inuu la socdo kaybalada ay jinsiga aflaanta qaawan ka soo galaan hameenkii midnight-ka kadib inuu la socdo haddii kale kaybalka aan lagu furaynin waay maxaa ku xiro shardi uga dhigay waa inuu sidaas aan go'aansanay bi kuleeyna anagu guriyihii muslimiinta oo marka waxaan soo galay aflaamtii qaawanayd oo free ku soo galaysa after midnight-ka ayaa ku soo galaysa guri kasta marka waxa laga yaabaa oo muslim uu leeyahay zinadii faaxishadii in lagu samaynayo oo hameen kasta ay maanta halkaas ka socoto ilmihiga kuwii teenagerka baa fiirsanaya kuwan diinta lahayn oo Soomaalida ah baa fiirsanaya masaa'ilka ku imaanaya 24 saac wax laga ooyay ayaa ku imaanaya dhaqankii gaalada ka sii xun nin gabadhiisa kula dhaqmaya dhaqan fool xun oo khariban oo xayawaani ah kula dhaqmaya wax alla wixii uu ku arkay TV-ga doonaya inuu ku dabaqo xaaskiisii ya maalin kasta soo gaarta oo noo timaada waxaan idin kaga digayaa kolka bokosyada khariban ee guryaha idin yaala iska ilaaliya waad ka maarmi kartaan iska daay haddaad iska day weydaan natiijadooda idinka arki doontaan haddii aad iska day weydaan natiijadeeda idinka arki doontaan
laakiin ha iskugu darinina ilmihiinna fasaadka akhlaaqdooda iyo dhaqaalihiinna ku bixintiinna iyo qadabka ilaahay intaba ha isku darsanina iska ilaaliya bokiska xunu guriga lagu soo dhigay waxa weeyaan qanaatu sharri weeyaan wax khayr oo ka soo baxaana ma taala halkaasi si alla sidaad uga takhalusi karto uga takhallus ilmaha kolkaad 2 bilood ka goydo kaybalka asaasiga oo cajalada cartoonisa kaliya u keento way ka samri doonaan kaybalka inta adaa u keenay markii hore si aad uga goyn lahayd ku dadaal oo uga fujo ilmahaaga haddii kale waxaad ogaataa wax alla waxay ku arkaan TV-gaas inay kugu dabaqi doonaan berito ayaguna isku fulin doonaan ogow liwaadka waxa laga barayaa waa ayaga lesbianka waxa laga barayaa waa ayaga iyo gayska wax allaala wixii akhlaaq xumo oo dhan meesha laga baro waa halkaa weeye inay daawadaan baana ku filan cid kale tay uga baahan yihiin fasir ma jirto arinta ayada tuugada sariqada dilka wax alla waxa fashaad shuduudul jinsi oo dhan kulli meesha laga bartaa waa halkaa weeyaan iska jir oo bokiskaas maanta wuxuu u yahay stationka asaasiga asaga iska ilaali bokiska maxaa loo keenay in lagu baabi'iyo akhlaaqda iyo dhowrsanaanta iyo qiyamka iyo karaamada insaaniga intaba in lagu baabi'iyo oo dadkii ay noqdaan waxaan ka fakarinin ilaa calooshooda iyo farjigooda ma wax kale aan ka fakarinin bal ay gaareen inay isku fuulaan amaam al-mala inay isku fuulaan oo ay insaaniyada ka baxaan darajatul xayawaan inay gaaraan jaamacadda dhexdeeda ayaad ku arkaysaa ayagoo isku fuulayaan nin iyo naag ayna u tahay maanta ma arkaysaa shay mubaaxa oo la ogol yahay marka kuma aha wadan aad joogto haddaad adigu iska adkaydana ilmahaagu iskama adkayn doonaan marka taa waa inaad ogaataa waa xaqiiq weeye waa factis weeye si alla sidaad uga tabaabushaysan lahayd uga tabaabushayso qof ay dhimbil dabihi dhinac uga dhiganta waa inaad ahaatid weeye ama mas dhinac uga dhigan yahay saas iskaga fuji lahayd ay ku jirtaa weeye dabcan waan kugula jiraa anigu waxaa si sahlan u soo baxaysa qofka mujtamacaas ku dhex nool inuu akhlaaqdii gaalada si sahlan u qaadanayo oo dhaqankoodii qaadanayo oo labiskooda uu qaadanayo oo caadaadkooda uu qaadanayo oo kastamkooda uu qaadanayo sidoo mujtamacaagii muslimka kuugu ahaa mujtamac mucallima sidoo kuugu ahaa inuu mujtamac kaafirkaana mujtamac mucallima inuu kuugu noqonayo ogowtaa hadafka shanaad oo miraha ka mid ah oo khatarka halka yaala waxa weeyaan in la soo qariray la iskuna waafaqay markii Soomaaliya ay ku soo jabeen way waxaan hayaa chronological system oo Soomaaliya from 91 to 97 ayaan hayaa iminka oo wax alla wixii ama budrus raqiis iyo wixii la socday ay wada qoreen dhamaantood iyo gaaladii iyo wixii ay ku fashileen ay ku qoran yihiin iminka oo governmental document ayaan hayaa iminka jaamacadda oo inta leeg Faransiis iyo Ingiriis inta bana ku qoran waxa xaqiiqdu ay tahay waxa lagu baabaashay maran ka hadlaya mawduuca dhaqaalaha United Nations 3 bilyan oo dollar ayaa lagu cunay mishinkii Soomaaliya marka maqaalka aan ka qoray ciwaankiisu wuxuu ahaa dhaqaalaha United Nations ay ku bixiyeen Soomaaliya ma ayaga qaatay mise ummadda la siiyay xaqiiqdu waxa weeye ayaga qaatay ummadda lama siinin ceel ma qodin oo isbitaal ma dhisin oo iskuul ma dhisinin oo dad ma quudinin oo beera ma samaynin oo daara ma dhisinin maxaa lagu qabtay waxaa lagu qabtay ummadda in la isku diro oo la isku laayo oo la isku gubo kaliya taa loo geeyay inta iyagu soo qaateen mogintii kale sidaas loo sameeyay human development-ga markaad fiirisid human development-ga asaaskiisu waxa weeye bini aadamka horumarintiisu waa inaad tacliintiisa iyo dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisa inaad hormarido weey